بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك عاول وتلقى لنا هل كان كاخرية وحكو سابسي سيئي حكمة خلق الإنسان. حكمة الله أبوري أما سأل سبحانه وتعالى وأبوري بني آدمك، ومسألة رنتي هدي أن وحيك حقي سلوك حينين dadka madaxu ku daalo in badan la isku dayay in laga jawaabo si jawaab aan loo helin. waxa aan wali la garan karin oo binaadamku isweydiinaya limaada khuliqna, maxaa la inoo abuuray, xagaynu ka nimi, xagaynu ku soconnaa, noloshani xagay ku gabagaboobaysaa, waa maxay risaalada aynu sidnaaye nolosha aynu u noolay, maxaynu u joognaa halka kan, maxay macnaynaysaa nolosheennu. su-aasha tan dhan kastoo laga eegaba bashariyadu in badan ba isku dayday, ama bini aadamku in badan buu isku dayay hadyi la'aan ama iyadoo aan la adeegsanaynin alle iyo rusushiisu wixii uu soo dhiibay inay ka jawaabaan, laakiin waa laga jawaabi kari waaye. waxay gaadhay markaa xad qofka bini aadamkii uu qiimo beelo, waayo shaygu wuxuu qiimo ku leeyay marka waxa lagu isticmaalaya ama waxa uu goynayo marka la garanayo. yani mikrofoonkan horkayga yaalla haddii aan la garanin, aynan garanayn xikmada ah waxa loogu samaystay inay tahay in lagu hadlo, wuxuu iska noqon lahaa bir yar oo biraha meelahan yaalla ka mid ah. waayo mar haddii xikmadiisa la garan waayo qiimo ma samaynayo. shaygu wuxuu qiimo sameeyaa marka xikmadiisa la garanayo. insaanku se markii xikmadiisii la fahmi kari waayey wuxuu noqday waxaan qiimo samaynaynin. walidalik ayuu axadu shucaraa'ihim, shucaraa'i aljaahiliya, ama mabaadi'dan samaawigaa ciddii aan fahmin mid ka midoo gabyayey baa wuxuu leeyahy: ji'tu laa aclamu min ayna walakinii ataytu walaqad absartu qudaamii طariiqan famashaytu saabqii saa'iran in shi'tu hada ama abaytu kayfa ji'tu kayfa absartu طariiqii lastu adri walimaada lastu adri. ilyaab almaadi wuxuu leeyay waan imid dunida tan anigoo aan garanayn meel aan ka imi toona. wuxuun baan is arkay buu leeyay anigoo jooga, wadduun baan arkay buu yidhi cagahayga ka hoos baxda, dabeetana waan iska raacay, waddaduun baan iska hayaa, waan iska socon buu leeyay waddadaa gartay meel ay ku socoto ama maan garanba, waan iska wadayaa un waddadan socodkeeda. sidii aan meeshan u imi iyo waddadan sidii aan u arkay midna ma garanaya buu yidhi. isweydiinta waxa le buu yidhi maxaan u garan waaye, xataa iyada lafteedaanan garanaynoo ka jawaabi karin buu leeyahy. noloshu hadday hadafka weydo qiimo ma leh. walidalik baa qoladan alfalsafa alwujuudiya existentialists miyaa la yidhaahdaa, qoladan rumaysan waxaa la tilmaama axadu falaasafatihim oo faransiis ahaa, siduu doctor rushdi fakar uu soo naqlinayo, ayaa wuxuu dilay haweentii uu qabay oo faraxsan, dabeetana booliskii u tegey isagoo u sheegaya inuu islaantiisii dilay. qisada meel quraan uga socdaa, waa filosof, waa la baadhay, waa caqli qabaa, waxba ma xanuunsanayo, waxba ma cabbin, ma waalla. saashii markii la weydiiyeyna falsafadiisii unba ku sharxay oo ah nolosha tani waa tacab buu leeyahy,
waa dhib. qofka bini aadamkiina buu yidhi wuxuu ku jiraa dagaal guntiisa la ogyay. oo maxaa guntiisu tahay? waa geeri buu leeyahy. ku yar, ku weyn, ku hore, kuwa haysta, kuwaan waxba haysan. waa a matter of days waxaad noolaanaysaa uun 50, 40, 60 markaad jirto waad dhimanaysaa. idan waa dagaal ku gabagaboobaya buu leeyahay inaad jabto. marka waxa quraan haystaa buu leeyahay waxa weeyaanuun inaan isku dayo bal inaan tan ka baxo anigoo faraxsan ama anigoo nolosha raalli ka ah. marka haweenaydaydii waxaan arkay buu leeyahay iyadoo qoslayso faraxsan. waxaan sidhi iminka ugu fiicantahay hadda ha dhimato hadday faraxsan tahay nolosha ka waa ida nolosha waxay u nooshaan macna samaynayn, waxay meesha u joogtaan la garanaynin. dabeetana itaalka isagu waxa buu rabay ascadu awqaatiha, waqtiga ugu farxadda badnayd inay ka baxdo. maaha waqti sii fog, waa discardkan iminka noole markuu faransiiska madaxweynaha ka ahaa weeyaan, min akbar cuquuli faransa. waayo waxaa dhibtu ka taagantahay waxa weeyaan qofka bini aadamka oo la garan waayey waxa uu qiimo leeyahy muxuu meesha ka qabanaya. waxay isweydiiyaan acdaada qofka bini aadamka ah, cudwigiisa, organiskiisa, organ kasta xikmadda uu jidhka ugu jiro waa la garan karaa bay yidhaahdeen. haddii atibada caalamka la isugu yeedha bay leeleeyahy oo la yidhaahdo ishu maxay macnaynaysaa, waa maxay xikmadda ish ka dambaysaa, way sharxayaan. waxaan bay tartaa, saan bay u dhisantay, saan bay bini aadamka waxaasay u qabataa. kelidu maxay u qabataa, waa la sharxaya xikmadda ka dambaysa kelida. dhegta waa la sharxaya xikmadda ka dambaysa. marka midhmidh loo sharxo, isku daro waa maxay xikmadda haddaba dhammaantii u abuuraya marka la yidhaahdo that's philosophy bay yidhahdaan dhakhaatiirtu dib bay isu taagtaa. maxaa laga sharxaya marka? haddaad gaadhi maalan taayirka sharaxdo oo kursiga sheegto oo taangiga sheegtid oo carbedarka sheegtid oo dacsada sheegtid oo wax waloo gaadhiga ka midaba aad sharaxdid, marka gaadhiga wuxuu u toro aad ka warrantid, marka lagu dhaha gaadhigoo dhan xikmadda ka dambaysa waxaad tiraa waxba ka garan maayo. dee gaadhiganaad sharxaysa qiimo ma leh, in layska tuuro weeyaan mar haddaan la garanaynin wax lagu qabto. idan insaanka dhibta haysataa waxa weeyaan waxaa la garan la'yahayba wuxuu qabto. markaan soo koobana laba ixtimaal baa jira. ixtimaal le qasdi baa loo abuuray oo qofkan bini aadamkaa shaqaa loogu talagalay, probabilitygu, iyo probability kaleoo labaad oo odhanaya maya waa cabath iyo dheeldheel iyo waxba maaha. probabilityga cabathka ah caqliga iyo sharciguba waa diidan yihin. إلهي وحليه سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. موضوع أنت كهدرنتي هدان قرآن ونخريه أفتن صفحي هريا لوا قرآن تكفي يدا كفلا، لكن وحي موقتر هير كندا عربي دايا في صومالي بيكتكين بالليلي afka gaalada mooyaane kuwa kale ma fahmaan. bal waa isku daydayaya markaa inaan bacd alaayaat wax ka tilmaamo. ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ma waxaa u malaynaysaan annamaa khalaqnaakum cabatha, ma inaan damba laydinka lahayn qasdi inaanu abuurkiina ka dambaynin ee dheeldheel iyo cabath iyo ujeedda darra in laydin abuuray miyaa u malaynaysaan baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala, oo inaydan noo soo noqon doonin. إلهي وحليه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إلهي وحليه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. cirkan iyo dhulkan iyo waxaan u dhaxeeya kownkana dhex joogtaan umaanan abuurin baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala baatil iyo qasdi darro iyo cayaayir looma abuurin. daalika dannu aladiina kafaruu baa ilahay yidhi. inaan waxbaba macnaynaynin waa malaha kuwa alle ka gaaloobay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala fawaylu liladiina kafaruu min annaar. warma waxa u malaynaysaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwa iimaan iyo camal saalixa laga helay iyo mufsidiinta
dhulka fasaadinaya inaynu isku nooc ka dhigayno. aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay wamaa khalaqna aلsamaaءa waalarda wamaa baynahumaa laacibiin low aradna an nattakhida lahwan latakhadnaahu min ladunna in kunna faaciliin bal naqdifu bilxaqi cala albaaطil fayadmaguh faida huwa zaahiq walakum alwaylu mima tasifuun. aayad kale ilaahay wuxuu leeyahy wamaa khalaqna aلsamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin maa khalaqnaahumaa ila bilxaq walakina akharahum laa yaclamuun ina yowma alfasli miiqaatuhum ajmaciin. aayaadkaasi qur'aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa subxaana wa tacaala cirkan iyo dhulkan iyo wixii dhex yaalla oo bini aadamku ka mid yahay inaan lacib iyo dheeldheel loo abuurin. haddaanu cayaayir doonayna baa ilaahay leeyay low aradna an nattakhida lahwan latakhadnaahu min ladunna in kunna faaciliin baa ilahay yidhi subxana wa tacaala. agtayadaanu ka samaysan lahay wax lagu dheeldheelo ee dheeldheel looma abuurin. idan waxaan leenahay cabad looma abuurin bini aadamka. ayaxsabu alinsaanu an yutraka suda. bini aadamku ma wuxuu u malaynayaa in sidaa lagaga tegayo? maya, dheeldheel looma abuurin. waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya subxaana wa tacaala insaanku hadduu tan isdhaga maro goor dhow inuu xaqiiqada indhaha saari doono. wa qaaluu low kunna nasmacu wanacqil ma kunna fi asxaabi saciir faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir. yacni ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala in la rumaysto dunidan in dheeldheel laysaga joogo oo aan qasdiba ka dambayni inay garaadlaawannimo tahy, caqli xumo. in every aspect oo laga eego waa caqli xumo. adduunka kan iskama abuurmin, cidla kama imanin. ka warran haddaan ku idhaahdo madbacaddii magaalada ee wax daabacaysay, madbacadda marka la daabacayo qof baa safa xuruufta, xaraf xaraf baa loo dhigaa. haddaynu idhaahno meesha haza ardiya unbaa dhacday, earthquake unbaa dhacayo dabeetana sanaaduuqdii ay ku jireen xarfuhu ayuunbaa intay kor u soo duuleen ayay bismi illaahi araxmaan araxiim qortay. ma rumaysanaysa? laga yaaba inaad tidhaahdo bismi illahi araxmaan raxiim waa 12 xarafi. malaayiin xarfi hadday isku daataan inay un dhowr ba iyo siin iyo miim iyo alif iyo laam iyo intaas isu tagto bismi illaahi araxmaan raxiim. laakiin haddii la yidhaahdo ka waran madbacaddii markay qaraxday waxaa ka soo baxay buug kumbeyj ah oo ku qoran yahay gabay ka warramaya cilmi falaga oo si fiican isugu daba taxan, caqligu ma qaadanaya? maya, ma aqbalaysid. yacni masaladu way dhaaftay probability theory iyo intuu ka suurtagalaha iyo waxaasoo dhan way ka tallowday. buug dhan oo design u baahan iyo fikrad wixii ku qoraayo waxaasoo dhan baa kownkan intan leeg baa cabad iskaga yimi. big ban baa dhacayo kown baa samaysmay. that's nonsense. kownka intan leeg ayaa cabad ku yimaan cidi ka dambaynoo qorshayni wax suurtagala maaha. saa daraaddeed buu ilaahay wuxuu leeyahy am taxsabu ana aktarahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ila kalancaami bal hum adal. ma waxaad u malaynaysaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala intooda ugu badani inay wax maqlayaan amase inay caqli leeyihin? waa xoolahoo kale baa ilahay yidhi subxaana wa tacala, xoolana waa ka liitaan. waaladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluun kama ta'kulu alancaamu wannaaru mahwan lahum. aayaadkaasi waxay tilmaamayaan aynu soo sheegnay qadiyadda cabadka iyo dheeldheelku inaanay jirin ee qasdi dunida tan in alle uu abuuray subxaana wa tacaala. haddaba maxaa loo abuuray? maxaa looga jawaabi kari waayey? sanco kasta xikmada loo sameeyey saaniceedu ku qarsoonyoo yaqaana. maalan haddii 80aadka bilowgeedii haddii mobiilka yar lagu keeno, imika waa la wada isticmaalaa mobiil iyo telefoon iyo waxan baa iska tira batay, qof garan lahaa wuxuu yahay ma jiro. allahuma ilaa ka sameeyaa inuu sharxo oo yidhaahdo waxan waxaaya waxaasaa loogu talagalay. idan shay kasta cidda samaysay
ayaa taqaana qasdiga loo sameeyey waxa loogu talagalay shayga kan waxaynu isweydiinaynaa wuxuu yahay insaanka yaa sameeyey saciddii samaysay ma la weydiin karayaa inuu inoo waranto waxa loogu talagalay insaanka waxaa abuuray alle subxaanahu wa tacaala waana qadiyo aan muran badani ku jirin ilaahayna wuxuu leeyahay alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu alkhabiir ilaahay miyaanu ogeyn kuwa abuuray sancadiisii isagu miyaanu garanaynin ilaahay baa wuxuu leeyahy walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid bini aadamkaanaa abuuray baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxay naftiisa ugu sheekaynayso o dhanna waan garanayaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala sidaa awgeed sida saxahi waxa weeyaan inaynu ilaahay subxaana wa tacaala la weydiiyo basharkan wixii u abuuray waayo life sbanku bini aadamku intuuna leeyahy way tiro badantay laakiin inta aynu arkaynaaba fatro yaroo ka mid ah haddaanad shaygoo dhan wada arki karin xikmaddiisa ma garan kartid haddaad qayb ka mida uun lagu tuso waxa qudhaynu hadda aragnaa waa intan aynu noloshan adduun joogno waxa ka dambeeyo dhan ma aragno wixii ka horreeyeyna ma aragno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa markaa cidda garan weyda wixii loo abuuray inuu la mid yahay cid madaxa ku socota afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahdaa am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim ma waxaa toosni badan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ma waxaa toosan qofka madaxa ku socda qofka madaxa ku socda waxa weeyaan waa qofka iska indha tiray waxa kaloo dhan maalan haddaad aqoontaynu garanayno dhami waa aqoon aan qiimo badan lahayn marka masaladan loo eego haddii maalan nin intuu doon markab weyn uu sameeyo lagu raaxaysto oo uu meeshii la seexanayay meeshii wax lagu cunayay meeshii lagu orordayay meeshii lagu nasanayay wax walba intuu ku sameeyo dadka uu yidhaahdo soo raaca waxaan diyaariyey waxaa cuni lahaydeen meeshaa u socon lahaydeen oo markaynu idhahna xaggu ku socdaa markabkaaga uu yidhaahdo garan maayo maxaad odhan lahayd waa nin waalan baad odhan lahayde waxaan uu wadee uu leeyahay waan qurxiyey meel u socdaba garan maayo nolosha waxaan laga qurxinayo o dham waa nolol aan la garanaynba meelay u socoto yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wa hum can ilaakhirati hum gaafiluun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala nolosha adduunyo wax yar bay ka garanayaan baa ilahay yidhi nolosha adduunyo daahirkeeda sare bay garanayaan ama aakhiro waa ka ghaafiliin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala sidaa awgeed ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa waxa basharka loo abuuray maxaa loo abuuray marka ilaa isagaa abuuray inaynu isaga weydiino weeyaan haddii mas'aladaa la garan waayo ilahay wuxuu tilmaamaya waman yushrik biاllaahi fakaأnnamaa khara min الsamaa'i fatakhطafuhu طayru aw tahwi bihi الriixu fii makaanin saxiiq cidda ilaahay u shariik yeeshay cidda garan weyda wixii loo abuuray fakaأnnamaa khara min الsamaa baa ilahay yidhi waa sidiioo ku laga soo tuuray cirka ka soo dhacay oo fatakhطafuhu طayr aw tahwi bihi الriixu fii makaanin saxiiq cirka markuu ka soo dhacay oo markaa shimbiruhu ay cirka ku boobayaan samada isagoo soo dhacayoo laalaada ay boobayaan ama dabayluhu ay qaadayaan oo meel daran ay ka tuurayaan yacni waa qof aan hadaf lahayn waa qof aan noloshiisaan waxba ka garanaynin meel uu socdo garanaynin ilaahay baa inoo sheegaya xikmadda laynoo abuuray marka isagaa ina abuuray alaa lahu alkhalqu waalamr tabaaraka allahu rabu alcaalamiin isagaa abuurka iska leh amarkana isagaa iska leh maxaa laynoo abuuray marka ilaahay wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allah huwa alrasaaqu du lquwati almatiin jin iyo bini aadam toona uma abuurin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala cibaadadayda mooyaane
inay aniga ay caabudaan ayaanu abuuray baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. xoola lagama rabo iyo inay cid quudiyaan toona. ilaahay baa arasaaqa oo dulquwati almatiina, laakiin waxaa laga rabaa inay alla caabudaan subxaana wa tacaala. weedho kooban markaa waxaynu leenahay insaanka waxaa loo abuuray sida qur'aanku sheegaya inuu ilaahay caabudo subxaana wa tacaala. waxaa loo abuuray in cibaadadaasi lagu itixaamo oo la eego liyabluwakum ayukum axsanu camala. sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy alam acad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shaytaan. insaanku maadaama cibaado loo abuuray bifitratihi buu caabidiyey. waxay yidhahdaan taariikhda bashariyada lama hayo qof bini aadam aan wax caabudin. xataa bay yidhaahdaan culumtana aahaarta iyo waxaan la qoday iyo waxa kan weli lama helin bay yidhahdeen magaalo aan macbad lahayn. wixii la doonaya ha lagu caabudo. cibaadadu way qaldantaa marar badan baa ilaahay keyrkii la caabudaa, laakiin meel bilaa macbada lama haya bay yidhahdaan. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala miyaanan reer nebi aadamow ballan idinka qaadin ah inaydan shaydaanka caabudin. wa an icbuduunii hada siraatun mustaqiim. si awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala rasul inoo soo diray. rusushaasi oo ah kuwa ina saxaya ee inoo sheegaya hadafka laynoo abuuray. haddii lagu qaado matalan maanta oo cid intay ku qaado saxaare lama dega lagu geeyo meel aad u dhaqaaqda aanad garanayn, se ciddii ku dhigtay ay kuu sheegto sababta aad meeshan lagu keenay iyo waxaad u baahan tahay, haddaad diiddo tidhaahdo may waxba soo heli maysid, saxmi maysid. haddaad se instructionkiisa raacdo waxay u badan tahay inaad saxanto. noloshan waa layna keenay, laynagalama tashan. raqma anfik baad ku timi. cidi midabkaad noqon doonto kuma weydiin, dhulkaad ku dhalan doonto kuma weydiin, qabiilkaad ka tirsanaan doonto kuma weydiinin, meeshaad joogi doonto kuma weydiinin, aabbiyo hooyadaad yeelan doonto kuma weydiinin, goortaad dhimanayso cidi ku weydiin mayso, xaggaad u baxayso cidi ku weydiin mayso, xabaashaad gelayso cidi ku weydiin mayso. all this waa lagu keenay. allihii ku abuuray ee ku keenay ayaa wuxuu ku leeyahy waxaan meeshan kuu keenay baan kuu sheegaya, rusul baan kuu soo diraya. rusushaasi waxa ay kaaga warramaysaa waxa meesha lagu keenay inaad ka qabato. laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmih faqaala yaa qawmi icbudu allah maa lakum min ilaahin gayruh inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nebi nuux oo rasuulkii ugu horreeye lasoo dira ah, say mufasiriintu tilmaamaan, waa loo soo diray dadka waxaanu ugu yeedhaya yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru. tolkaya waa la caabuda, cid kale ilaah kale ama macbuud kale oo caabudaan ma lihidin. ilaahay wuxuu leeyay walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut faminhum man hada allah waminhum man xaqat calayhi adalaalah fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. ummad kastoo dunida kor joogta rasuul baan u soo diray baa ilaahay leeyay. rasuulku muxuu waday? an icbudu allaha wajtanibu taaquut. ilaahay caabuda subxaana wa tacaala, ka fogaadana kuwa qooqaya xadgudbay ee waxaanay xaq u lahayn raadcaynaya. cibaada ilaahay baa xaq u leh subxaana wa tacaala. cid kasta oo kaloo hunguraysaa waa cid kibirtay oo qooqdo mansilo aanay lahayn isgaadhsiisay. ilaahay wuxuu leeyay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay la hadlayo alle wuxuu leeyahy adiga hortaa rasuul maanan soo dirin ilaa iyo rasuul kasta oo bashariyada loo soo diray waxaan u waxyoonnay annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduuni, inaan ilaah xaq lagu caabudaa jirin aniga mooyaane buu alla leeyahy subxaana wa tacaala. ee faacbuduun, caabuda baa alla leeyahy subxaana wa tacaala. waxaa ilaahay tilmaamayaa ambiyadiisa iyo rususha iyo dadka fiicfiican inaanay mas'aladaas iyo malaa'igtiisu marnaba ka santaagayn. lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala almalaa'ikatu almuqarabuun
waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica. ciise almasiix calayhi salaam kama san taagaya baa ilaahay yidhi inuu ilaahay addoonkiisa noqdo. malaa'igta muqarabiintiina kama san taagayso inay alle addoommo u noqdaan. ciddii ka san taagta ilaahay cibaadadiisa iyo addoonnimada ee iswaaweynaysa baa ilaahay yidhi ilaahay waa soo xaadirin doonaa. waa la soo bacthul bacda almowt baa la keeni oo waa la xisaabin. nebi maxamed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiika alyaqiin. idan waxaan leenahay hadafka ama qasdiga ama xikmadda aynu halkan u joognaa waa in laynagu itixaamo ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala. waxaa ceeba markaasi inaynu hadafkii asalkaha ilowno oo wax kale ku mashquulno. waxaa ceeba inaad garan weydo kelimatu tawxiid iyo waxay kaaga baahantahy si aad injineer noqoto. waxaa ceeba inaad salaadda sixi kari weydo si aad tabiib noqoto. 17 sanawaat inaad jaamacada joogto adigoo cibaadadaadu ay saxmi kari laaday. waxaa ceeba hadafkii aad u noolayd inaad garan weydo oo wax kale ka horraysiiso. waxaa aqoon darro ah inay cibaadada ku weydaariso markaasi waxyaabo ah minor cases ah aan ahayn waxyaabo primary ama aan ahayn wixii rasmiga ahaa ee lagugu talagalay. basharku markaa wuxuu u kala qiimo badan yahay dunida jooga siduu ugu kala toosnaan badan yahay masaladaasi cibaadada ah. masalada cibaadada ah siduu ugu kala toosnaan badan yahay ee u kala cibaado badan yahay ayuu u kala koreeyaa. ina akramakum cinda allahi atqaakum. bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanaya ama wakhtiyadii aadka loo ammaanay waxaa ka mid ah oo mansilada sare uu joogay waxaa loogu yeedhayaa ilaahay ku tixgelinayaa lafdiga inuu addoon yahay. alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah. ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaa mahad iska leh allihii addoonkiisa kitaabka ku soo dejiyey. waxaa weynaaday oo wax barakeeya aladii nazla alfurqaana calaa cabdih. furqaan xaq iyo baatilka diinta kala socda kii ku soo dejiyey addoonkiisii si uu ugu noqdo dunidoo dhan nadiir mid digaya. subxaana aladii asraa bicabdi. waxaa xumo ka hufan allaha dheelmiyey ama allaha guuraysiiyey addoonkiisii moxamed aha. alisra waalmicraaj markuu u baxayey waa leylatu tashriif. inaa anzalnaahu fii leylati alqadr. markii alle uu sharfay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee la kaxeeyey ee loo kaxeeyey xaggee beyt almaqdis ee la dheelmiyey laga dheelmiyey beyt almaqdis ee la qabadsiiyey xaggee fowqa 7 samaawaat ila sidrati almuntaha. wakhtigaa ugu sharafta badnaayee sidaa loo maamuusaya ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa subxaana aladii asraa bicabdih. sifada lagu safeeyey baa ah sifat alcubuudiya. bale markuu risaalada gudanayey ee uu maqaamka rasuulnimo taagnaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wa annahu lama qaama cabdullaahi yadcuuh kaaduu yakuunuuna calayhi libada. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa ambiyadu markay istilmaamayaan waxay isku tilmaamaane isku maamuusayaan inuu noqdo inay ilaahay addoommo u yihiin. qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaab wajacalanii nabiya duriyata man xamalnaa maca nuux inahu kaana cabdan shakuura. bale addoommaha waa wanaagsan ambiyada saalixiinta dadka wanaagsana ilaahay ammaanaya nebi muuse ninkii saalixa ama nebi khidare uu tegey
إلهي وحكولي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهلا يبال لي عبدا من عبادنا أدونا ضمها يغا كمدا وأنو سيني نحريس حقا يغا كتمي وأنو بري علم الدنك يغا كيمي إذن عبادته ونلشها أسل كيدي هدف كاسي قفك هدو كلمه ونلشي سوى خسارة عبادة داسي معنى هذا قودي وحوية هاي نلشاد ودنين إلهي سبحانه وتعالى إن هقان سناتيد الله سبحانه وتعالى وهقان سناتيد وحكستوات قبانيسو عبادات كواوين إنه نقانا عبادات كمحضقة دو توحيدي دو ذكري دو صلاة زكو حج صون هي وحي لمده بل النبي قوحي نوت المامي وفي بضع أحدكم صدقة هوانتي سحلاش قفكو هدو وقال موضوع هنا إلا بهدو بأجر هليان بلو حالي نوت المامي يسوق وضضة أسكا قيال لها دينو كدونه إني من الإيمان تاي الإيمان بدعة وسبعون أو بدعة وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وحلينات المامي نلش أردن إني عبادة نغطو قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلهي وحلي سبحانه وتعالى نبي محمد قل إن الصلاة ونسكي وحتى هذا عبادة ديدة صلاة ديدة قورة عيقة عبادات كي قردن ومحياي وممات غيري ديدة نلش ديدة وحي قردن إلهي بان ورق جيسان يدنكيس سبحانه وتعالى أو وحبا أو الشريك يالي مايو عبادته هو حرية قفك بنادم كوهلا ومحدك حروبيسا مخلوقاتك إلهي أبو ري ونبتك حروبيسا إلهي كلي يا ضدون النقونيسا كلي بادو حروبيسا ضدك بربا درهم كعابده تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخطيفة نبي قول عليه الصلاة والسلام وحهوغي كالدرهم يدينار كاللعقت أدون كوا ذهب كأدون كوا سلفر كأدون كوا قضيفة أدون كوا أبو النبي قول عليه الصلاة والسلام هذا نلش أدون كوب حسه إن الدرهم يدينار والرسول قد عابديسه أفرأيت من اتخذ إله هواه كورن با إلهي سبحانه وتعالى كان معبود كسي إلهي سكركتي وحي نفتي صدونتي إلهي با وحلي سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي أنا قبا إلهي سبحانه وتعالى حقيقة هدو هنون إذن كي مادو عدي هنون كي قرع دوا هنون طيبا لكت المامي سبحانه وتعالى وضدي صحيد بهالي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا عدي أنا حسكي كتشي ستنبا إلهي سبحانه وتعالى وحلي أن الله عديدية ونحشره يوم القيامة أعمى قيامها وحن كنا يسقوا عندنا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وحيد هذا إلهي سبحانه وتعالى محادي كانت ينقوا عندنا وحان هنشر مدين دقبه قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وحلقوا هذا آيات كيقو ويكوي مادين دبيتنا واتسي إلا وسيس واتضافتي واتكتكتي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ساسانكو أبال مريبا إلهي كو كستا وإسراف حد قدبه وإلهي آيات كيسان رمينين ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن إخوتي في العقيدة العبادة ووحي إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كوابوري نولشن انت وجوغو إنه ممتحن يهي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وحاس كلو الله شيغي
inuu beer xanuun iyo dhib iskaga jirayo walaqad khalaqna alinsaana fii kabad laakiin waxaa loo tilmaamay inuu ku daalo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa kaasaa laga abaalmarinayaa yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim aladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa shaaa rakabak war reer nebi aadamow maxaa idin weydaariyey maxaa idinka kediyey baa la yidhi allah idin abuuray subxaana wa tacaala wuxuu u baahan yahay qofka bini aadamka ahi inuu garto markaa siru wujuudi muxuu halka u joogaa dunidan muxuu ka qabanayaa markaad ogaato inaad geeriyoonayso laa maxaalata inay tay kuwii kaa horreeyey madhe adna waad ka daba madhanaysaa shalayta adaa inan yar ahaa oo aabbo hooyo adeer in adeer qaraabo abti habar yar cid baad haysatay maantana adigunbaa dadka waxu ahay adiga cid wax ku ahi ma joogto aabba adeer awow madhe adaa booskii jooga xaggaad kuyuuga u haysataa geeraad kuyuugeeda haysataa waxaynu nahay bulsho dhammaanteed dil ku xukuman oo kuyugii dilka haysata oo kuwii horena dhinteen adna aad daba socoto idan waxaad u baahan tahay fitrada ama fursadda ama waqtiga yaraad haysato inaad cibaado kaga faa'iidaysato cibaada inaad kaga faa'iidaysato garatid waxaad halkan ku qabsato aakhira inuu alla subxaana wa tacaala ka abaalmarinayo noloshu inay ku gabagaboobayso janno iyo naar inay ku gabagaboobayso sida awgeed ciddii garan weyda waxay u nooshahay wuxuu ka liitaa kabaha uu xidhan yahay waayo kabta xikmaddeedaa la garanayaa waxaa la garanayaa kabta maxaa loo sameeyey inay cagta ilaaliso qodaxda kaa dhowrto ciidda xikmad bay leedahay laakiin qofka garan waayey xikmadda loo abuurayba dee kabtu yuus bay qiimay leedahay wixii loogu talagalay bay qabanaysaa laakiin insaanku markuu garan waayo wixii loo abuuray waxaad mooddaa inuu qiimo beelayo inuu lumayo sida awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo diray rusul iyo ambiyo ina saxda oo dariiqaasi inugu hanuunisa dariiqaa haleelitaankiisu iyo cibaadadaasi ayaa waxay tahay sirta nolosha dhabta ah waxay tahay nolosha adduun waxa ay ku islaaxdo oo cibaadaadku nolosheennan adduun iyagaa islaaxiya nolosheenna aakhire ee dambana iyagaa islaaxiya wax kasta oo cibaado ka baxsanina waa nolosha hore iyo ta dambaba wixii fasaadinayay jahlina waxaa ugu fool xun oo ugu weyn jahliga garan waaya wixii loo nooliyey jahliga garan waaya wixii loo nooliyey cibaadaadkaas ikhwati fi lcaqiida waa shay aan bidcada aqbalin ee itibaaca waa shay la raaco sidii uu alla u jideeyey loo raaco ilaahi subxaana wa tacaala isagaa garanaya wuxuu raalli ka yahy waxa uu jecel yahy waxa uu necab yahy waxa aanu rabin idan cibaado adigu aad samaysato iyadana looma baahna waxa quree la rabaa cibaadadii alla ku faray inaad samayso sida awgeed ayaa bidcu waa ziyaadaat cala alcibaada waa in dheeraadoo lagu darayo cibaadadii oo aan ka mid ahayn cibaadadu waa intii uu alla jideeyey isagaa garanaya ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ku farxaa muxuu ka raalliyey muxuu ka cadhoodaa muxuu necab yahay muxuu inaga rabaa waxaasoo dhanna wuxuu soo dhibay rusul sida oo inoo keenta cibaadaadkaasoo dhammaystiran hadday caqiidatay iyo hadday shareecatay
iyo hadday akhlaaqiyaad iyo hadday wax kastoo nolosha u baahantay tahay sidii laynoogu jidayay waa inaynu u raacnaa. idan cibaadada waxaa ka asala kow itibaac baa ka asala, raacis. bidaca iyo waxaa dheeraadka oo dhan laga tago. shayga labaad ee ka asalkiina waxa weeyaan in ilaahay keligii loola jeedo, ikhlaas, ama ilaahay subxaana wa tacaala keligii in lagu caabudayo ayaa ah shayga labaad ee ka asala. waxaan jeclay inaan hadalka badana kala dhandhaafo oo ku soo koobo nusuusta qur-aanka aan idinku akhriyay inay cabaarun u fiirsataan, garataanna waxaynu u joogno. wallahu aclam billahi towfiiq. wasalaamu calaykum. جزاه الله خير الشيخ مصطفى إسماعيل هارون. إلهي سبحانه وتعالى كابل مريم حاضر قيمك ونوشيدي إننا سبحانه وتعالى إلهي نقدقو قال كوا نقاته وقال وحو إلهي وأبوري سبحانه وتعالى ما أنت أو جمعة هاي جمعيه ولا ماضي ما أنت أن مصر نقدمته إلى يوم القيامة. إلهي سبحانه وتعالى وحكبري إنه نقيه له قار عمل كودو صالح نقضه أو إلهي نقابله سبحانه وتعالى. كل كان نسوي من يو بيت كان مساج كان إلهي نشوفنا عز وجل إنه إلهي نقابله وميزان كان حسنات إلهي ونقدره سبحانه وتعالى. بريت ولا أو سبتيا وحنو بلا مدونا برنامج مهدي إلهي لهذا كوبيت مكي بركة صباح نمو. marka insha Allah waxaan inagu dhiirigelinayaa dhammaanteen inaynu hore u nimaadno si aynu uga faa'iidaysano waqtiga. waayo waqtiga maalmahan aynu joogno waa maalmo tirsan sida uu sheekhu inoo sheegay, halka loo socdaana waxa weeyaan waa geeri. marka inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmahani aynu la hortagno wanaag iyo magaranaysa inagoo sidaynu hore soo sheegnay dhaxalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhegaysanayna oo ku qaybsanayna masaajidka Abu Hurayra. insha Allah ogeysiisadii aan sheegay waxaa ka mid ah waxaan la hadlayaa dhammaan dadkii ku tukan jiray masaajidka Abu Hurayra ee muslimiinta caadiga ahayd, idaaradda iyo dhammaan dadka la soo martay. dad fara badan baa inoo iman doona oo meelo fog ka kala yimid. marka insha Allah waxay nagu habboon inaynu si fiican soo dhaweyno dad marka meel isugu yimaadaan arrin la qabanayo kollay sidii la doonayo waxyaaba badan baan u dhacayn. marka dulqaadka in la farabadiyo oo waliba gaar ahaan qaybta gabdhaha waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa inay dulqaad badan u yeeshaan carruurta iyo martida faraha badan leh ee inoo iman doonta. aynu ku soo dhaweyno masaajidkeennan Abu Hurayra, dadkuna dareemaan inay gurigoodii joogaan. saasi ayaan ku dhiirigelinayaa qof walba jooga halkan. insha Allah waxaynu u dareeri doonaa salaadii cishaa'i, dabeetana ballankeenu wuxuu noqon doonaa haddii ilaha yidhaahdo beritoole oo sabtiya iyo 12 barka subaxnimo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.